السلام عليكم daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kasta oo aad muuqaalkan u daawanaysaan waa idin salaamay waa saaxiibkiin Waliid Maxamed beejka aad daawanaysana waa isla Waliid Maxamed soo dhawaada ayaan idin leeyahay saaxiibayaal meel kasta oo aad iga daawanaysaan waqti walba idin tahay soo dhawaada maanta waxa ka hadli doonaa muuqaalkii daraad aan fasaxnay oo ay beejka saaxiibo badan ka daawadeen horta warbixintaas wajiib badan iyo marxalad badan ee soo martay inta aan horta u guda gelin ka hadalkeeda marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ustaad Maxamed Axmed Baari oo ah agaasim ku xigeenka radio ka oo runtii nina saaxiibnahay ah runtii marka uu arkay shaqadeeda iyo howlkarnimadeeda runtiina abaalmarin iga dhigay in warbixintaas oo iga sameeyo anagoo is ogeen aanan dhihin iga sameey inuu iga sameeyo horta ugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol halkaan waa ugu mahad celinayaa kulay si gooniyana waa u mahad celiyay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Kevin De Bruyne amala iska dhigoyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibka Cabdikariin Joker oo ah yarka muuqaalada iyo habeeyo mar walba waxa aragtiin adinka muuqaal habeesan oo diyaarsan fikrada ka dambeysay maskax saaxiibkii Cabdikariin oo aan marnaba runtii hawsheeda ee culeys ku noqonin oo muuqaalada si qurux badan igu habeeyo ayaan u mahad celinayaa runtii waa dareemi kartaa qof maanta ku hool 24 hours oo muuqaalada ku soo dhigay page ku habeenayo horta ma jiro saaxiibkii horta uu ku mahadsan yahay sidoo kale saaxiibkii cilmiga asna u mahad celinaa oo dalka Norway ku sugan oo page asna wax soo geliyo adminada page ka mid ah anigana isku mahad celinaa maadaama page nin kala ahay horta siyaabo kala duwan looga falceliyo muuqaalkaas 30,000 oo qof aad daawatay waa 30,000 oo qof tira yar maaha commentiga waxa ku arkay dad badan oo saaxiibada kuwa aan hore ii aqoon kuwa horta hore ii yaqaan saaxiibada ah horta kulay way ii yaqaanaano Waliid waxaas inuu sadhig u dhigeenin oo maxay tooy halganka nolosha iyo waxaas isaga eeba shaqadiisa tahay oo oosan dhag jalaq u siinin in qofka naafanimo iyo waxaas aysan waxba ka reebeen laakiin waxa jira dad badan oo runtii social media kaliya iga yaqaanay oo aanan maxay tooy ii heesan inaan qof noocaan ahay arag naafaka ah marka iyagana waxaan rabaa markay arkeen muuqaalka runtii commentiga niyo waxay u muuqdeen dad ii tacsiinay amal u muuqdeen oo horta nin noloshiisa soo dhamaatay oo ii tacsiinay horta kulli aniga qadarta horta Allah keena qofkana waxa kulli Allah u qora wixii uu maraayo qofka maanta wuxuu yahay biri wuxuu noqon doona Allah og mar walbana horta sida anaga u soconeen iyo waxa anaga aan rabno horta Allah noo doora marka sida oo Allah subhanahu wa ta'ala qofka u doorayna horta qofka ku samri waayo qofkaas horta maxay tooy ay dhibaato u sugnaatay mid kale waxa arkaysaa dad idhaayeen Waliid oo walaa bilaa tala saaxiibkii saam ku maleyneen wallahi niyo waa ka xunnaha wallahi horta waxa ka xumaata horta meeshaan ma yaalaan sababtoo ah aniga ku qanacsan qadarta alle anigiba kama xumiye marka adu waxa uu xumaata horta meesha ma taalo waa macquul horta inaa ila jeclaad inaa maxay tooy nin laxadkiis dhameystireen dad kale lamid inaa noqdo anigu waa jeclaa laakiin xaq alla wixii ka qornaa waay marka kulli yaa loo yaa lagu eedaya waa cidna Soomaa marka alxamdulillah rabbil alamin hadda wax iga maqan malahan asaagay wuxuu qabto waa qabtaa waa kana aniga aragtiin baad waxa waay waa kana gabar asxaabta kamid ah waxay dhaadniyo ma lagu maleedaas naftirkeeda ba ka horjeedaa baan waxa waay qofka soo iska dhiga asaga waay marka kulli waa idinkaasa soo dhawaada barasho wanaagsan Waliid waa kan soo dhawaada saaxiibayaal ani marka kaamirada hor imaado kaamirada marka hor imaado hadalada way iga dhudhumayaan ma garato marka waxa u mahad celinaa runtii saaxiibkii Cabdi Shakuur dad badan way yaqaanaan horta asxaabta dhageystayaasha idaacada dhageystaan way yaqaanaan horta kulay inta kale aqoonno beejka igala socdaan sawirkiisa kulay soo saari doonaa meesha ama hadii kaleeto عبدي كان عالمر انت سو استاك ادور عليه كامير ماك وقسلو يا رنتي نكانا وجدي واي نكان سو شيء نكا كاميرا انو كحشودا بعد والله مردو ارو يوتيوب لا وجيغا با كفرنا يوتيوب ها بعد هاي كيفن دي بروين فاكره مدحها ولا سو عايا
waa kaasa marka kaliya inaad dadku ku baraarabay waa fasaxantaa saaxiibka waa fasaxantaa ninkan saaxiibkay horta runtii ilaahay ka soo maanta ninka indhaha ii ah oo mar walba runtii xaaladeeda ka warqabo meesha aan u baahanahay wixii aan u baahanahay horta iga caawiya asiga waay horta dhammaan saaxiibada way wada jecel yihiin mar walba horta way i garab istaagaan laakiin qofba qof u dhow marka ninka saaxiibkay ee mar walba iga warqabo waliba ninka saaxiibkay qisooyin badan oo ani asina dhaxmar hadii aan idin kaga sheekeeyo kulli ina ilmada cishan doontiin ina ilmada cishan weysiina laga yaabaa marka kulli waa dareemi kartiin nin saaxiibka ah oo mar walba nafta ku huraayo waxaa xasuustaa 16 bisha Oktoobar in ay ahayd u maleynaya maalinta sanad guurada idaacadda in asxaabta aad damaashaad aadeen qof walba runtii inkastoo liiga warqabo aan saaxiibada idaacadda ay wada jecelin dhamaantood haddana ninka kaliya ee isaga oo awoodo inuu sawiro soo galgalo soo baashaala beerta dhinacoo doona ka tago haddana agteeda aan mar walba taagnaa oo aniga runtii dhibka iga ilaalinayo runtii kulli ahay waana naga dhaxaysaa kulli laakiin wanaaga qofka in loo sheego mar walba loo qiro waxa wax fiican waay marka kulli waa idinkaas 3 daqiiqo way dhamaatay waa idin salaama saaxiibaday soo dhawaada insha Allah muuqaal xigana waa soo gudbin doona TikTok na waa furtay aliga horahay TikTok marka Waliid Arteta igu qoran waa kaas marka soo dhawaada bil lagu soo dhaaw sheeg hay commentiga bil lagu soo dhigi doona hadii alla idmo link ahaan waa loo soo dhigi doona marka waa kaas saaxiibada waa idin salaami habeen wanaagsan qof walba waqtiga u tahay